رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام يا رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد walaalayaal waa barnaamij musalsala oo taxane ah oo ku saabsan wararkii dhambaalsidayaasha ama qisooyinkii nebiyadii ilaahay subxaanahu tabaaraka watacaala ilaahay uu soo diray wararkoodii inaga oo ka duulayna kitaabka ilaahay tabaaraka watacaala iyo sunnada nebi maxamed sala allahu alayhi waalihi wasaxbihi wasalam runtii walaalayaal qisada ama qisada ambiyada alqisa alqur'aaniya waxa la yidhaahdo qur-aanka kariimka haddii aan hordhacyaal ku bilaabo qur-aanka kariimka walaal qisooyin fara badan baa ku dhex jira qisooyinkaasoo dabcan u qaybsamaya qaar ambiyo ilaahay subxaanahu tabaaraka watacaala uu kaga dhex shekeeyey oo dhambaalsidayaal ah dadka ilaahay subxaanahu tabaaraka watacaala uu usoo dhiibay risaaladiisa iyo waxyigiisa oo dadka soo gaadhsiinaya iyo dad aan waxa weeyaan aan ambiyo ahayn dad wanaagsan ama saalixiin ah ama waxa weeye rag iyo dumarba qisadii mathalan maryam oo kale calayhi assalaam ilaahay tabaaraka watacaala suuradan ayuu u bixiyey suuratu maryam kadalika aydan nabi muuse calayhi salaatu wasalaam hooyadii umu muusa marka qisada waxaa la yidhahdaa qiso waa maxay marka ugu horeysa qisada qur-aanka ilaahay subxaanahu tabaaraka watacaala uu ku dhex sheegay waxaa la yidhahdaa waa khabar ama waa war ilaahay subxaanahu watacaala uu ka sheekeynayo can xaadidatin gaa'iba dhacdo gaa'iba oo maqan oo inagu aynan joogin markii ay dhacaysay qisooyinkaas runtii aad iyo aad bay u fara badan yihiin qur-aanka waxa ku dhex jiraan waana waxyi oo waa shay maqan oo min anbaa'i alghayb ah yani waxa jooga way jiraan culamada qaarkood uu yidhi qisooyinkii waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam sida qaswatu badr qaswatu uxud qisooyin u bixiyo qisooyin ku magacaabay laakiin runtii markaad u fiirsato qisooyinka marka ilaahay tabaaraka watacaala maalan suuratu huud suuratu yuusuf kadalika aydan suwarka qaarkood suuratu ali cimraan marka ilaahay uu ka sheekeeyey qisooyinkaas uu ka waramay ilaahay wuxuu u bixiyey inay tahay min anbaa'i alghayb وإلهي تبارك وتعالى وحوري ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك سورة آل عمران سورة يوسف تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك سورة هود تلك من أنباء الغيب وورر قيب قن وأنو كاغا ورمنا إلهي لي سبحانه وتعالى نبي سأكله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تاسو هردع كسابسا قصة القرآنية محيطة هردع على بعض kitaabka ilaahay tabaaraka watacaala walaalayaal wuxuu koobsaday waxa la yidhahdo ujeedooyin maqaasid alqur'aan bay u bixiyeen culamada qur-aanka ka hadla cidda wax ka qortay maqaasida ama ujeedooyinka qur-aanka runtii cidda ugu culus ee aan u arkay ama aan wax u akhriyey waxa uu yahay alcalaama aطaahir bn cashuur raximah allahu tacaala kitaabkiisa tafsiirkii weyn ee loo yaqaano altaxriir watanwiir wuxuu u sameeyey muqadimaad hordhac u ah qur-aanka ilaa 10 muqadimo oo runtii aad u mufiid ah way tahay ardayda طلاب العلم cilmiga sharciga baranaysa inay runtii ay akhriyaan muqadimaadka ay mashaayikhooda ku dul akhriyaan oo ay faa'iideystaan runtii ay haboon tahay marka wuxuu tilmaamaa muqadimo ku saabsan muqadimaadka 10ka ah maqaasidul qur'aan ujeedooyinka danaha qur'aanka ilaahay tabaaraka watacaala maqaasida ilaahay u jeedo ama ujeedooyinka loo jeedo dadku wax weeyaan inay qur'aankan ay ku dhex faa'iideystaan maxaa kamid ah ilaa 10 ilaa 8 ujeedo ayuu tilmaamaa ujeedooyinka waxaa kamid ah alqasas qisooyin in ilaahay tabaaraka watacaala uu ka dhex waramo in qur-aankiisa ilaahay tabaaraka watacaala uu ku dhex sheego qisooyin oo dadka lagu wacdinayo waayo waa usluub ka mida asaaliibta dacwadda asaaliib dacwa ila allah subxanahu watacaala usluub ka mida weeyaan ilaahay muxuu yidhi faqasusi lqasasa lacallahum yatafakkaruun qisooyinka ka waran ayaa ilahay yidhi subxanahu watacaala laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab laqad kaana fii qasasihim qisooyinkoodii waxaa ku sugnaa dadka wanaagsan saalixiinta oo suuratu yuusuf markii ilaahay tabaaraka watacaala qisadiisa uu soo dhameeyey cibaratun liuli lalbaaba ku sugan oo shay lagu cibro qaato marka runtii walaalayaal waa maqsad ama waa ujeedo kamida ujeedooyinka qur-aanka kariimka u yimi waxaa kamid a qisooyinka oo qisooyinkaasi waa maxay waa maqsad yani axkaam sharciya way jirtaa amar iyo nahyi
يعني wax la amrayo oo dadka wax weeyaan ilaahay tabaaraka taala fal u leeyahay sameeya iyo wax ilaahay dadka u diiday oo ka reebayaba quraanka way ku dhex jiraan aydan qasas baa jira ilaahay tabaaraka taala uu doonayo in muslimiinta iyo muuminiinta ilaahay uu ku sugo iyo anbiyadaba saa inoo soo socota ahdaafteeda iyo wax weeyaan iyo waxyaalo kale oo ku saabsanba runtii walaalayaal qasaska quraanka ku dhex jira waa shay aad muhiim ah waliba qisooyinka waxa ugu sii culus ama ugu sii muhiimsan qisooyinka anbiyada waa dhanbaal sidayaashii xagga ilaahay tabaaraka taala ka yimi وضدك إلهي تبارك وتعالى أودورتي الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إلهي تبارك وتعالى وحو كدورتي ضدك ضد دنبال سيديالا ملائكة إلهي وحو كدورتي ملائك دنبال سيديالا ووحيي سو غارسيني يحوين أنبياء الله أعلم حيث يجعل رسالته إلهي تبارك وتعالى وأقوم بدن هلك رسالتي سأودغيو عد إلهي وكدغيو النبي درجة ولا النبي نمدو ونمعذا وغصر الرئيساء إلهي تبارك وتعالى قف بني آدم أوصيه وأنه كدقوا النبي يختص برحمته من يشاء عدة أوضونه أي إلهي تبارك وتعالى وأحشاء وأدورتا نحريستيس مركي قالت إلى هذين محل لو قدقوا النبي عد علص ووحويا لبدا قريو مكة يا طائف من كل حشيغان وكل علص والنبي محمد هين عليه الصلاة والسلام بين بي شيغين النبي محمد وقول عصلا عليه الصلاة والسلام مكية طائف يدونك وعدي مركا وحوى يكسقون هيدا محل قدي وإلهي سبحانه وتعالى محوري وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وهذا الكودي محل القرآن كل قصة تشوين لبدا قرية أما لبدا وحوى مقالبة كل شيغان أو مقعيسو وحوى معلوسيهي انت الله صدر نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلهي محوك جوابه أهم يقسمون رحمة ربك ما يقع يا قيبين نحرست إلهي تبارك وتعالى نحرست إلهي إساق بحنيه سبحانه وتعالى إلهي عيد دونه إساق أدورني نبي النمو إلهي عيد دونه إساق كدقية النبي صلى الله عليه وسلم لما تدبع ولا ريال برنامج كان رنتي وحنا أمي سنة هاي إنه آدي آدو فائدة بدنيا هاي تاسنا وحي إلهي وايو برنامج كان قصوين كأنبياء وحكو صابصا مستر كأنه كلا كل ما يلا وقول علص وكتابك إلهي تبارك وتعالى إذن وبرنامج أينو كفى إذا سندونا كتابك إلهي تبارك وتعالى تفسير أو كلا وحوي نقول كره قصوين كحويا أنبياء فائدين فربضان إن شاء الله تبارك وتعالى يدروس لقلب حياة قصة أنبياء إن شاء الله تبارك وتعالى إنه كسب بني جدونا والله يا القصوين كأنبياء إلهي تبارك وتعالى قرآن كإن فربضان أيوكو شيء isku waxweeyaan isku si ilaahay uma sheegin qisooyin waxa ku jira quraanka hal mar ilaahay tabaaraka taala uu sheegay sida qisada nabiyullah yusuf alayhi salatu wassalam hal mar ba ilaahay tabaaraka taala uu ka waramay waxa ku jirta qiso 5 goor 6 goor ilaahay tabaaraka taala uu ka waramay sida qisada nabiyullah aadam alayhi salatu wassalam waxa ku jira qisooyin ilaahay uu aad u farbadiyay sida qisada nabiyullah muusa alayhi salatu wassalam qiso aad u ajiiba oo inoo iman doonta insha Allah tabaaraka taala walaalayaal قصوين كاس إلهي وحقوق العلينا يا تبارك وتعالى واي وحي كم ينتهي من العلم النافع بل ما دام إلهي القرآن كيسا وكل شيء أونا كل العليي علم نافع والله برتواك أوغن نفع بدن له واك أوغن علص أوغن فائدة بدن له ولا ليال إلهي تبارك وتعالى هل قصة وكل العليي 10 جور 20 جور 60 جور وهذين نهاي معاشرة الله بالعلم وعلم الشرعي أرتينا ما أنت برنيسا يضد ما أنت عامة ومسلمين وما أنت هذين نهاي وقصة القصوين كائنو ساء الظلمرنا صدا إنه آخرنا ورمضان كست قصوين كائنو ساء الظلمرنا كتابك إلهي تبارك وتعالى أنت ساء الظلمرنا قرآن كائنو ختمينه لكن مركلي أنه مسويدين المقصود كأما وتشدد محيته قصة محل وشيء دروستين وكلام حينا محيته وحنو كفاية سنة محيته marka runtii walaalayaal waa shay aad iyo aad runtii u muhiima aanay tahay in biidin ilaahi tabaaraka wa tacaala inuu iska wacyi gelino hordhaca walaalayaal saddexaad waxay tahay اسلوبك قصة قرآنية قابك إلهي تبارك وتعالى وغور رميه قصة قرآن كريم كمركب مانته وحويان دحديس مركب مانته آخرين إنه يقصوين كين عادي مركب مانته وحوي قصة عادية ينقف مانته وكشة كيني أما قصة مانته وكور رميه قصوين كا وحول دحية فروق مفارقات بجرا وكلا دحية فرق وكلا دحية أي جرا قصة قرآن كقصة أرورتي يقصوين ككلا مانته إنه كشة كيسنينه فرق إن شاء الله تبارك وتعالى حلقة صوصعودة أيون كقعد لدونا بإذن الله تبارك وتعالى والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة
شهر الكتاب تلاوة وقيام.